Asalaamu calaykum, soo dhawaada saaxiibayaal. Muuqaalkeenna maanta waxaynu ku sharxi doonaa filim Maraykan ah oo la yiraahdo The Perfect Score. Fadlan intaynan muuqaalka hore u galin ha ilaawin inaad nagu soo biirto oo aad subscribe saarto. Daawasho wacan. Kylie waa arday dugsi sare ah oo hiigsanaya inuu galo kulliyadda architecture-ka ee jaamacadda Cornell. Si wacan ayuu u garanayaa waxa uu nolosha ka rabo, laakiin imtixaanka SAT ayaa u dhaxeeya isaga iyo riyooyinkiisa. Furitaanka goobta wuxuu joogay hoolka imtixaanka isagoo eegaya warqadda jawaabta ee u sheegaysa inuu yahay nin dhexdhexaad ah. Kadib markii uu baaraha ka codsaday inay joojiyaan qoraalka, Kylie wuxuu eegay hareerihiisii. Waxay indhihiisa qabteen gabar lagu magacaabo Anna. Anna waxay haysataa 4.0 GPA, waana ardayga labaad ee ugu sarreeya dugsiga. Wax lala yaabo ayaa ah in warqadda jawaabaheeda ay gebi ahaanba bannaan tahay. Waxaa la sheegay in ardayda ay ku fiicnaan karaan waxyaabo kala duwan. Qaar baa heesaha ku fiican, qaar baa ciyaaraha ku fiican, laakiin marka loo eego imtixaanka SAT, qofka waxa uu doono ha ku fiicnaado waa inuu ku aflaxaa imtixaankan oo standardized ah, kaas oo go'aamin doona mustaqbalkooda. Sheekadu waxaad u malaysaa inay tahay cadaalad darro, balse imtixaankan ayaa la dhahaa SAT. Waa imtixaanka ugu adag, waana imtixaan tijaabo ah. Natiijooyinka markii la daawacay, Kylie wuxuu keenay 10-20 halka laga rabay inuu keeno 24-30 si uu u helo kulliyadda uu doortay. Wuxuu uga dacwooday maamulaha habka aan macquulka ahayn ee SAT ay u diyaariso imtixaanada ardayda. Wuxuu yiri in la isaga qaado imtixaan ka buuxa isla egyada xisaabta iyo xaaladaha bulsho ee adag maaha habka lagu go'aamin karo inuu ardayga baran karo kulliyadda uu ku riyoonayo. Maamulaha waxa uu qaabilaa boqolaal arday imtixaan kasta kadib, arday kasta isagoo ka cabanayo inay cadaalad darro u tahay imtixaankan. Laakiin dhammaantood hal shay ayay ka wada siman yihiin, taasoo ah dhibcahooda ayaa ka yar waxa ay u baahan yihiin. Kylie waa mid ka mid ah kuwa ugu dhibcaha yar, sidaa darteed wuu diiday wadahadalka kadib markii uu siiyey talo uusan ku qancin oo uu u gudbiyo arday kasta. Kadib waxaana la baray Mary, Kylie saaxiibkiisa ugu fiican haddana ah garabkiisa midig. Celcelis ahaan waxa uu haystaa 2.3 GPA, waa arday aan aad uga wacnayn waxbarashada. Mary saaxiibtiisa Sandy waa arday cusub oo ku jirta kolleejka Maryland, sidaa darteed hadafkiisa keliya ee mustaqbalka waa inuu ku biiraa kolleejka Maryland oo uu la qabsado hal mar oo keliya. Kylie ayaa u sheegay in uu been u sheegay waalidkiisa isagoo ku yiri inuu keenay natiijo dhan 24-30, iyagoo sabool ah ayaa xitaa u soo iibiyey keeg si ay ugu hambalyeeyaan. Walaalkiisa ka weyn Larry waa doqon ka weyn Mary. Waxa uu ku nool yahay dusha garaashka waalidkii oo u sheegay in uu guri kale u yahay sababtoo ah waxa uu haystaa khad telefoon oo u gooni ah. Larry ayaa si lama filaan ah u dumiyey shumaca ku sawiran eberta, wuxuuna ku kaftamay sida uu ku helay 143 dhibcood ee exaamka SAT. Maalintiisa kadib, asxaabtii waxay aadeen xarunta dhexe ee imtixaanka waxbarashada ee loo yaqaano ETS si ay uga dacwoodaan nidaamka cadaalad darrada ah. Si kastaba ha ahaatee, ninka qaybta soo dhaweynta joogay ayaa ka diiday inay galaan, sababtoo ah arday badan oo iyaga ka mid ah ayaa u yimaada inay ka dacwoodaan buundooyinkooda SAT maalin kasta. Kadib markii lagu amray inay baxaan, gabar ayaa si xaraka leh u socota gudaha dhismaha. Ayadu waa tan looga hadalhaynta badan yahay magaalada, iyo riyada wiil kasta oo dugsi sare ku jira. Magaceedu waa Francisca. Waxay u socotaa dhismaha sida ay iyadu leedahay, taas oo aanan run ahayn sababtoo ah aabaheeda ayaa ah kan leh dhismaha. Fiidkii Kylie iyo Mary waxay cabeen khamri si ay uga fikiraan dariiq cusub oo ay uga gudbi lahaayeen imtixaanka xiga. Mary wuxuu wacay saaxiibtiisa Sandy, laakiin nin ayaa ka qabtay taleefankeeda. Wicitaanku wuxuu socday ilbiriqsi kaliya, laakiin Mary wuxuu ogaaday inay khiyaamayso isaga. Wuxuuna eedeynayaa imtixaanka SAT, wuxuuna saaxiibkiisii u soo jeediyey inay xadaan jawaabaha imtixaanka soo socda. Kylie wuu qoslay markii hore, laakiin wuxuu bilaabay inuu tixgeliyo fikradda. Marka xigta ay kulmeen, waxa uu Mary weydiiyey in haddii ay amaahanayaan warqadda jawaabta ETS ma yeeli lahaayeen. Mary wuxuu soo jeedinayaa inay weydiistaan Francisca caawimaad maadaama ay geli karto xarunta ATC waqti kasta oo ay rabto. Waxaa intaa dheer, iyadu waa gabar halis badan, waxayna samayn kartaa wax kasta si ay danteeda u gaarto. Labadooda waxay ku fikireen inay ku soo biiri doonto markii loo sheego qorshaha, isla markiiba way ogolaatay. Intaa kadib waxaana la barayaa ciyaaryahanka kubadda koleyga ee Desmond. Wuxuu qorsheynayaa inuu ku biiro jaamacadda ST. John oo u ciyaaro kooxdooda ayaa dhigta jaamacaddaasi. Xitaa Dean
wuu ku faraxsan yahay inuu ku biiro jaamacaddan. Si kastaba ha ahaatee waa inuu galaa imtixaanka SAT oo uu keenaa ugu yaraan 900 dhibcood si uu u galo kulliyadda uu ku haminayo. Desmond ayaa aad ugu fiican xisaabta, laakiin taasi weli kuma filna inuu keeni karo 900 dhibcood. Kylie iyo Mary waxay aadeen suuliga dugsiga. Markii Kylie uu rabay inuu u sheego madaxa dugsiga ee Anna waxa ku saabsan qorshahooda, jacayl buu u qaaday, laakiin wuu diiday inuu qirto. Mary wuu niyad jabay sababtoo ah waa mid ka mid ah dadka soo degay qorshaha. Wuxuu ka cabsaday inay u sheegi doonto booliiska, laakiin Kylie wuxuu u xaqiijiyay inaysan dhacaynin arrinka sababtoo ah waxay diiday inay ka qayb noqoto qorshahooda. Si kastaba labadoodu waxay moodayeen inay keligooda ku sugan yihiin suuliga, waxayna la yaabeen markii Roy uu ka soo muuqday mid ka mid ah suuliyada. Kylie iyo Mary waxay aad u rajaynayeen inuu ninkani uu yahay qof aad u sarreeya oo fahmi kara waxay raadinayaan, laakiin waxay ogaadeen inuu aad u feejigan yahay. Ugu dambeyntii waa inay si cagajiid ah qorshahooda ugu daraan. Habeenkii Anna waxay ku soo noqotay guriga, waxayna aragtay in waalidkeeda uu u yeeray Professor Brown si uu uga caawiyo gelitaanka jaamacadda. Way ka daashay iyaga oo ku qasbaya inay samayso wax ka sii wanaagsan sababtoo ah ma rabto inay aado jaamacadda Ivy League meesha ugu horeysa tan iyo markii ay ka soo baxday imtixaanka SAT, si ka badan sidii hore ay u cadaadiyeen waalidiinteeda. Subaxdii xigtay, Francisca, Kylie, Mary iyo Roy waxay aadeen xarunta ETS oo ay dejiyeen qorshaha dhaca. Francisca waxay siisay lebiska qolka boosada waxayna ka dhigtay inay galaan dabaqa ETS si dhib la'aan ah. Waxay ka codsadeen Roy inuu dibadda ku sugo, laakiin si uunbuu u soo galay dhismaha oo uu isku daray qorshaha. Kadibna kooxdii way kala tageen oo waxay ku wareegeen xafiisyada iyagoo isku dayaya inay ogaadaan qolalka ku jira waraaqadaha jawaabaha ee imtixaanka SAT. Dhanka kale ee maktabadda dugsiga, Desmond wuxuu kula kulmay Anna oo ka codsaday inay ka caawiso inuu isu diyaariyo imtixaanka SAT. Si kastaba ha ahaatee, Anna lafteedu aad ayay uga welwelsanayd imtixaankan, waxayna ka baqaysaa inay mar kale khalkhal gasho. Waxay ku fikiraysaa inay ku biirto kooxda Kylie oo ku saabsan xadidda jawaabaha, iyo sidoo kale waxay qorshaha u sheegtay Desmond, rajaynaysa in ay isaga caawin karo. Markii lagu soo noqday xarunta ETS, qof dumar ah ayaa la kulantay Roy oo ku dhex dhuuntay xafiiskeeda. Waxay ku dhawaatay inay ka warbixiso, laakiin wuxuu adeegsaday xirfadiisii xodxodashada ah si uu u joojiyo, wuuna ku guulaystay sida uu u adeegsaday. Qolka kale, shaqaale xafiis ayaa wacay Kylie oo u dhiibay warqadda su'aalaha SAT. Kylie wuu yaabay, laakiin waxaa soo baxday in ninku u maleeyay inuu shaqaale ka yahay qolka koobiga. Wuxuu ka codsaday Kylie inuu daabaco 2 nuqul oo warqadda imtixaanka ah. Kylie si farxad leh ayuu u aaday qolka koobiga, laakiin si lama filaan ah ayuu mashiinkii u kala gooyay warqadda halkii uu koobi ka noqon lahaa. Taa kadib, Anna waxay la kulantay Kylie waxayna weydiisatay in lagu daro qorshaha iyada iyo Desmond. Kylie ayaa rajo beelay, laakiin hadda oo Anna rabto in ay qayb ka noqoto qorshaha, waxa uu ka fikirayaa hab kale oo uu ku helo warqadda. Wuxuu ka soo ururiyay naqshadda dhismaha ee Francisca, wuxuuna ka codsaday inay hesho dhammaan furaha amniga. Anna waxay basaastay ilaalada xarunta waxayna ogaatay sida caadiga ah wareegyada ay galaan habeen kasta. Kadibna waxay go'aansadeen inay ku kulmaan Kylie walaalkiisa si ay ugu gudbaan qorshaha markii ugu dambeysay. inkastoo ay Francisca codsanayso shay, Roy ayaa caawinayo isagoo caddaynaya inuu yahay farsamo yaqaan. Kylie ayaa fikir galay sababtoo ah waxaa laga yaabaa inay u baahdaan gargaarkiisa hadday dhacdo xaalad adag. Kadib wuxuu si kooban u sharxayaa qorshaha, inkastoo ay tahay wax yar oo gariiraya oo aanu guushu la damaanad qaadin, balse kooxdu waxay ogolaatay inay caawiso isaga. Maalintii xigtay, Roy, Desmond iyo Anna waxay joogeen meel ka baxsan xarunta ETS si ay isha ugu hayaan ilaalada dhismaha. Dhanka kale, Kylie iyo Mary waxay soo galayaan dhismaha oo ay sugayaan ilaa dabaqa sare laga nadiifiyo. Markaa dhammaan shaqaaluhu ay guryahooda aadaan, Francisca waxay mashquulisay ilaaliyaha iyada oo siinaysa 2 fursad oo ay ku ordaan saqafka. Markaasi waxay adeegsadeen xirig si ay u galaan dabaqa ugu sarreeya oo ay tagaan qolka ay sheegeen inay ku jirto waraaqaha imtixaanka. Si kastaba ha ahaatee, waxaa soo baxday in sagxadda la dayactiray tan iyo markii la sameeyay naqshadaynta oo aysan garanayn meelaha ay ku yaalaan waraaqaha. Waxay diideen inay farumarnaan ku soo noqdaan oo waxay bilaabeen fikrado kale oo maskaxeeda. Kylie wuxuu soo xasuustay in ninkii ku amray inuu daawaco waraaqaha uu sidoo kale koobi saaran yahay miiskiisa. Waxay aadeen xafiiskiisii oo ay bilaabeen inay hareeraha ku eegaan toosashkooda. Isla markaasi waardiyihii ayaa dibadda u soo baxay si uu u cabo sigaar. Iftiin kanalkoodii ayaa si cad ah uga muuqda aragtida waardiyaha. Sidaa darteed, Anna si dhaqso leh ayay ugu wacday kooxda si ay ugu digto. Waxay damiyeen nalka ilbiriqsiyo ka hor inta uusan
uusan waardiyihii arkin. ugu dambayn waxay heleen qolkii ay raadinayeen, laakiin waraaqadaha jawaabta meelna lagama helin. waxay isku dayeen inay furaan kombiyuutarka, laakiin waxa uu u baahan yahay furasireed ee baaswar ah. waxay ugu yeereen farsamayaqaanka Roy si uu u caawiyo, laakiin waa inay mashquuliyaan ilaaliyaha ka hor inta aysan u ogolaanin Roy inuu yimaado. markaan Mary wuxuu la yimid qorshe. wuxuu wacay saaxiibkiisii si uu ilaaliyaha u keeno ubax iyo khamri oo uu mashquuliyo. marka uu ilaaliyaha ku mashquulay helitaanka hadiyadaha, Roy gudaha ayuu u orday isaga oo ay la socdaan Anna iyo Desmond, iyagoo u malaynaya in laga yaabo inay caawiyaan. kadib Roy wuxuu saadaaliyey baaswoorka isagoo isticmaalaya sawirka miiska yaalay. kooxdu waxay ugu dambayntii gacanta ku dhigtay warqadda su'aalaha, laakiin si ay u daabacaan waxay u baahnaan doonaan 3 baaswoor kale. dhammaan way rajo beeleen. waxay ku dhow yihiin inay soo laabtaan, laakiin Kaylee wuu diiday inuu quusto. wuxuu sheegay in ay xalin karaan jawaabaha waqti ka hor inta uusan waardiyaha soo galin. dhammaantooda isaga ay ku qosleen, sababtoo ah haddii ay ka jawaabi karaan su'aalaha marka ugu horreysaba halkaan ma imaadeen. su'aashii ugu horreysay kor ayuu u akhriyey. Anna si degdeg ah ay uga jawaabtay. Anna marka hore way ka jawaabi weyday su'aalaha fasalka dhexdiisa, sababtuna waxay tahay cabsi iyo walaac. laakiin marka ay la joogtay waxay si fudud u xalin karaysaa warqadda. Desmond sidoo kale aad ayuu ugu fiican yahay xisaabta. markaas isaga iyo Roy waxay xalinayeen qaybta xisaabaadka ee imtixaanka, halka Anna iyo Kaylee ay xalinayeen qaybaha kale. ugu dambayntii Francisca iyo Mary ayaa loo sheegay inay ilaale meesha ka noqdaan. intii ay sugayeen waxay galeen wada hadal ku saabsan saaxiibtii Mary ee Sandy oo aan mar dambe wicin. Francisca ayaa u sheegtay inay dhammaatay, waxayna weydiisatay inuu ka gudbo iyada, laakiin Mary ayaa ka xanaaqay faalladaasi. isla markiiba way dhunkatay oo waxay ku tiri inuu saaxiib wanaagsan u noqon doono qofka uu jecel yahay. muddo kadib way dhammeeyeen su'aalihii, waxayna ugu dambayntii isu diyaarinayeen inay baxaan. Roy wuxuu isku dayay inuu marka hore isaga baxo, laakiin kuwa kale hoos ay u soo jiideen, iyaga oo ogaaday in uu alaab xafiiska ka xaday. Desmond wuxuu ku qasbay inuu dib ugu celiyo meeshoodii, halka kuwa kale ay sii wadaan inay meesha ka baxaan. Anna iyo Kaylee si sahal ah ayay u gaareen meesha ugu sareysa, laakiin ilaaliyaha ayaa u yimid wareegyada ka hor inta aysan kuwa kale baxsan. Desmond, Mary iyo Roy waxay ku sugnaayeen meel ammaan ah, laakiin Francisca waxay u dhowaatay in gacanta lagu dhigo. isla markaasi Mary wuxuu go'aansaday inuu yimaado waardiyaha hortiisa si uu u badbaadiyo Francisca, halka kuwa kale ay fuuleen saqafka sare ay baxsadeen. isaga wuu isdhiibay oo waa la xiray. subaxii xigtay Francisca waxay lacag ka xaday aabaheeda oo ay damaanad ka bixisay Mary. way isu soo laabteen oo way dhunkatay. Mary ma rabo inuu mar dambe galo imtixaanka SAT, sababtoo ah wuxuu u malaynayaa inuu ka fiican yahay inuusan aadin kulliyad. waxa uu rabaa inuu qaato 1 sano oo fasax ah si uu u ogaado waxa uu rabo inuu noqdo mustaqbalka. Anna sidoo kale waa qof ka duwan tii shalay. waxay hor istaagtay hooyadeed markii ugu horreysay oo ay ku dhawaaqday inaysan u socon Brown. intaa kadib kooxdu way soo aruurtay oo Kaylee wuxuu bilaabay inuu dhiibo jawaabaha. si kasta ha ahaatee, Anna way diiday inay qaado, sababtoo ah waxay doonaysay inay jaamacad u aado Yurub. Desmond iyo Roy sidoo kale way diideen inay qaataan jawaabaha, sababtoo ah Roy wuxuu rabaa inuu bilaabo soo saarista geemamka online-ka. Desmond wuxuu helay kalsooni kadib markii uu xaliyey su'aalaha inta lagu jiray xatooyada. Francisca oo horey u haysatay buundada SAT ee saxda ah wax faa'iido uma lahan jawaabahan. Mary sidoo kale ma gelayo imtixaanka. ugu dambayntii Kaylee sidoo kale wuu diiday inuu isticmaalo jawaabahan, sababtoo ah hadda ma jiraan wax faa'iido ah. Roy wuxuu jawaabaha u gacan geliyey saaxiibadiisa, kuwaas oo u soo baxay imtixaankooda. dhowr bilood kadib Desmond waxa uu galay imtixaankii, waxa uu helay jaamacaddii uu rabay. Mary wuxuu bilaabay inuu tijaabiyo door jilitaan, halka Francisca ay iibinayso sheeko-geedii ugu horreysay. Kaylee waxa kale oo ku guulaystay dib u galidda imtixaanka, inkastoo aanu galin kulliyadii uu doorbiday. haddana waxa uu ku riyoonayay inuu noqdo naqshad yaqaan. Anna dhanka kale waxay u guurtay Yurub si ay wax uga barato. waxay bilowday inay shukaansato Kaylee oo waxay si toos ah ugu noqotay New York si ay ula kulanto isaga. ugu dambayntii Roy waxa uu iibiyey geemkiisii online-ka ahaa oo uu ka faa'iiday, isaga oo malaayiin dollar ka helay. muuqaalka ugu dambeeya waxaan aragnaa isaga oo ku nool noloshiisa tan ugu fiican. ugu dambayn, waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. fadlan ha ilaawin inaad nagu soo biirto oo aad subscribe nagu caawiso. mahadsanidin.